إنتاج الشبل تقدم. sheekh saa'ilka maanta su-aashiisa aan ku bilaabayno wuxuu leeyahay timo jara ayaan ka shaqeeyaa, dhalinyaradana jeegada ayaan u xiraa, daawada madoobeysada iyo waxay u baahdaanna waan u mariyaa, mana diidi karo oo shaqadayda ayaa ku xiran. marka lacagta aan ka qaadanayo iyo xukunkeeda maxay tahay buu weydiinaya. tafadal mashkuuran. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. masala horta mabda'a guud ee meel tima jaraa in la furto oo laga shaqaysto ama laga shaqeeyo asal ahaan waa wax bannaan oo dadku timaha inay iska gaabiyaan iyo timaha in la iska jaraay iyadoo xuduudeeda la ilaalinayo waa wax bannaan, waana xirfad laga shaqaysan karo. ama qofka shaqada fulinaya ee xirfad yaqaankaa noqo, ama qofka meherada furanaya isaga aan ahayn laakiin meherada le noqo. marka horta shaqada asal ahaan way bannaanta. labada arrimood ee aada sheegtay in la samaynayo iyadu dee xukun ahaantoodu kuma xidhna meel tima jara ah, iyagoo keli aan marar badan bayna soo mareen oo marna laleeyahay jeegada ma la xiiran karaa, marna laleeyahay timaha madoobeysa ma la marsan karaa. marsigeedu dee kuma xidhna oo qofku gurigiisu ku marsan karaa, qof aan lacag ka qaadanayninna waa u marin karaa. waa waxay suuragal tahay meel aan tima jarahayn in lagu sameeyo. jeegada la xiirayana waa sidoo kale, qof aan xirfadle iyo tima jaro ahayn iyo meel aan ahaynba waa la tegi karaa. waxay ku xidhan tahay marka inaad samayso ma kuu bannaan tahay. haddii aad samayso waxaanaad ka heshay qofkaa ka qaadatay ma xaaraanba mise waa xalaal, waxay ku xidhan tahay xukunka jeega ma la xirtaay ma xaaraanba mise ma aha. waxay ku xidhan tahay in madoobeysa la marsadaay ma xaaraanba mise ma aha. marka labada masale waxay u baahan sheekh xusni in aan si kooban wax uga dhaho. marar badan bayna soo mareen labaduba. masaladaad horreysiiso oo ah jeegada xiiristeedu waa laba qaybood: in la xiirayo iyo in la gaabinayo. haddii ay xiiris tahay waxay u baahan tahay ma qorjarka dambe ee xaddii madaxa ka baxsan timaha ku baahay ee ku dheeraaday ee la jarjarayo ama la xiirayaa, mise madaxii laftiisii baa qayb la xiirayaa. hadday ka gaabis hadday tahay iyo haddii ay tahay xadda madaxa timuhu intuu lahaa waxa ka baxsan ee timahee dheeraaday ee degay, ama xaddii intay ka baxeen dheeraaday ee ka soo baxay meel ka baxsan, ka xiiristeeda iyo ka jaristeedu way bannaantahay oo dembi ma aha. ama nin tima jara ah ha kuu sameeyo ama yuuna kuu samayn, ama meel tima jara u samey ama bannaan ku sameey, taa samaynteeda way bannaan tahay. wixii lagu qaatana waa xalaal. hadday gaabin tahay qazac ma aha. waxaa meeshaa ku soo arooray oo dhan waa xadiidka nabigu calayhi الsalaatu wasalaam nahaa can ilqazac. wuxuuna yidhi ama wada xiira ama wada daaye. xadiiثu اlqazac wuxuu ka hadlayaa xadiiث ahaan waa xiiris ee gaabin ma aha. saa darteed xadiidka naskiisu gaabinta ma looga qiyaasanayaa timihii baa kala dheeraanaya waa maxalu nadar. de masalatu اlqiyaas marka la yimaado masaa'il iska ijtihaadi oo khilaafi ay tagaan, lakiin xadiidku wuxuu ka hadlayaa masalatu اlxalqi iyo masalatu اlqasri ma aha. gaabin ma aha. nahaa can ilqazac wuxuuna nebigu yidhi wada xiira ama wada daaya. saa darteed gaabintu aniga sida raajixa ila ah ma soo galaysa nahyigaas haddaynan baabu tashabuh oo gaal laysu ekeysiinay ama qofka laysu ekeysiinay ayna xaraam u noqonin. xaraam cad ma aha. waxaa soo haray xiirista lafteeda qazaca
xadiidkaa ku soo arooray cinda jamhuuri ahli اlcilmi biاlfiqhi waa karaahiya taxriim maaha nahyi waa nahyu tanziih nahyu taxriim maaha ama axaadiidta ku timid jeegaxiirka iyo imaamu axmed fatwada uu leeyahay iyo diidista iyo waxba kama ansixin xadiidta nahyiga can xalqi اlqafa jeegada dambe in la jaro ah wixii timaha xadda madaxiisa ka baxay oo waktigii taabiciintii bilaabatay oo dadkii cajamka ahaaye diintu gaadhee dad kamida ay tilmaatay sheegeen axaadiida waxba kama ansixin walidaalika in culimmada khilaaf ka jiro wax cadoo taxriiminaya aanay jirin xadiidka alxaafid ibn cabdilbar raximah اllahu tacaala markuu fi tamhiid tamhiidkan uu ku sharxay duruqda iyo macaanida muwaطa limaam maalik markii uu soo ururiyey munaasaba timin darteed wuxuu ku soo ururiyey xadiidan waxba kama ansixin wax daliil cadoo taxriima oo suganna ma jiro masalka ijtihaadi ah oo markay u badato baabulkaraahiyaad galaysa masalada qazac ee xadiidku xiiristuna de jamhuuru ahli اlcilmi fuqahadu waxay u badan yihiin inay karaahiya tahay qofka waxaa u fiican inuu iska daayo si dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka saasa axwadka ah tan timaha madoobeysada masalada intaasan kaga baxaya tan timaha madoobeysada la marsanayo iyadana masalaan marar badan ka hadalay oo khilaaf badan ka jiro min aلصaxaaba ilaa yowmina haada nahyiga nabigu waxayna ku salaysan tahay laba qayboodoo nahyiga nabigu uu reebay timaha madow in la mariyo ma sugan yahay mise ma sugna haddii uu sugan yahay ma litaxriimi baa mise ma aha labadaa way khilaafku waxay u cadcadee soo arooray waa laba xadiid xadiidka abubakr sidiiq ku yimid gayiru cani hada shayba wajanibuhu sawaad madow ka ilaaliya jumladan wajanibuhu sawaad ma nabigaa yiri mise waa min qowli الzuhri khilaaf iyo nisaac badan baa beyn ahli اlxadiid ka jira akharu الruwaat waa qowl zuhri bay ka dhigeen lakiin rag badan oo aimaana inuu nabigu yiri bay ka dhigeen waana ikhtiyaarka imaameynka bukhaari iyo muslim aimo badan ayaa ka dambeysay oo ka horeysa aimat اlxadiid iyo cilalka ahna waxay leeyihin may jumladan wajanibuhu sawaada waa min qowli الzuhri min qowli nebi ma aha wuxuu isagu ka fahmay gayiru cani hada shayba waay khilaafkaas wuxuu saameynayaa nahyigan ma ansaxay mise ma ansixin marka la yidhaahdo ma ansixin ninka yidhahda dee daliilkii taxriimka meesha ka baxay xadiid kale waa xadidka abu daawuud ibn cabaas akhiru zamaanka waxaa iman doona qowmun yakhdabuuna bisawaadi ka xawaasili اlxamaami laa yuriixuuna raa'ixata aljanna xadiidka ibnu cabaasna isna ma sugan yahay baa muran ka dhashay oo nin sanadkiisa ku jiro cabdilkariim la yidhaahdo ayaa la isku qabtay laba ninoo midna hiqa yahay midna daciif yahay oo isku dabaqa ah oo isku shuyuukha oo isku talaamid iyo arda ah midna waa cabdilkariim ibn malik aljazari midna waa cabdilkariim ibn abilmukhaariq abu umayata ibn abilmukhaariq waa daciif jazarina waa hiqa kan xadiidka ku jiraayey ma jazari baa mise ibn abilmukhaariq baa muran ka dhashay culamada qeyb baa ku tagay waa ibn abilmukhaariq saa darteed xadidku daciif ahay labadii xadiid culimmada waa daciif ku tagtay aslulibaaxay ku tageen beynahum saxaabaa ka mid ahaa aimat اlxadiid baa ka mid aha ibn abi caasim kitaab juz fi lkhidaabi bisawaad la yihahdo uu ka qoray buu leeyahay saxaabada ragga madoobeyn jiray cuqbata bni camir baa ka mid a xasan iyo xusein ibni cali baa ka mid a rag badan baa ka mid ah cuqbata bni camir markuu masar joogay markuu madowga mariyo maalmo kadib hoos ay ka soo caddaato beyd buu qaadi jiray wuxuu dhihi jiray nusawidu aclaaha wa ta'baa usuuluha walaa khayra fii farcin idaa fasada alaslu korkaanu ka madoobayna salkiina waa soo cadaanaya waa diiday madowgu naga aqbalo wax faa'iide ma laha buuri baarka oo madow hoosta ay soo fasaaday soo cadaatay ay kalar kale leedahay marka nusawidu aclaaha xasan ibn cali bay ka sugan tahay cumar cawri bay ka sugan tahay una asxaabay ka sugan tahay inay samayn jireen oo iyagu ahaa inay bannaan tahay madhabkoodii ilaa yowmina haadana kutub laga qoray labada dhinacba waa xaaraan iyo maaha way ansixeen ma ansixin hadday qolada tiri way ansixeen
xadiidka gaar ahaan ibni cabaas yaa loo badan yahay inuu cabdilkarim ibn malik aljazari yahay ninka meesha ku jira. dilaaladiisu waa dilaalat اlkhabar, aakhiru zamaan waxyaaba dhici doona buu ka hadlayaaye dilaalad noocaas oo kaleetihi xukun taxriim ma laga qaadanaya. masala usuuliya oo dilaalaadkii muran badan ka dhashay oo la isku qabtay wayada lafteeda. akmara min amaaraati saaca, dad calaamadaa leh. dee xadiidkan keligiina amaaraatu saaca ma ahe xadiid badan baa lagu dariyo. amaaraatu saaca calaamadeedu fasaadu zamaan iyo xaqa leexasho badan iyo baa jiri doonta. xadiidkan maxaadiidtii kale inta lagu daro bay dadka calaamadahaa leh oo wax kalena samaynaya janno ma carfinayaan miyaa? bise camalkan dadka samayn doona jannada carafteeda ma heli doonaan wey. muranka dilaalada macnaha ma laga qaadanayaa taxriim? jamhuurta fuqahadu markii xaalada laga soo reebo, xaalad marka laga soo reebo karaahiyay u badan yihiin. aniga xadiidu inay asaxeen baa raajixila, gaaraan xadiidka ibn cabaas. dilaaladiisuna inay taxriim tahay baa raajixila ah. laakiin de waa qowl culimo badan qabaan, jamhuurta fuqahaduna ayna xaaraantinimo qabin ee ay qabaan inay karaahiya tahay. qofkii dee calaa qowli jamhuuri lfuqahaa labada mas'alaba ku dhaqmee ku camal falay, camalkaaguna waa xaaraam, kasabkaaguna waa xaaraam lama dhihi karo. waxaan dhihi karaa aniga sida raajixayna ah, laakiin dadka makaasibtooda iyo arsaaqdooda haddii muqtadaa iyo dilaalada iyo madhabka qowli jamhuuri ahli lcilmi inuunan xaaraam makaasib muxarama aynan ahayn uu yahay, waxaan sheegi karaa ikhtiyaarka aniga ila saxan tan dambe ee madowga inayna bannaanayn. laakiin waa masale qofku mar walba ra'yigiisu isbedeli karo, ku tiigashana aan mudnayn. wabilahi towfiiq. jazaaka allahu khayr aljaza. si aada u wanaagsan baad noogu faahfaahisay. ilaahay ajirkaaga badiyo sheekh.